يا لله gacanta ayuu ku qabanayaa si uu kuu gaadhsiiyo darajo la gaadho midda ugu sarraysa wuu ku wehlinayaa wuu ku difaacayaa xilliga aad ku jirto walwalka iyo cidhiidhiga kaasi waa kee waa qur'aanka rabbi jalla jalaaluh suubanuhu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasallam waxaa la odhanayaa qofkii qur'aanka saaxiibka la ahaa marka uu jannada galo akhri oo kor noqo dabadeedna wuu akhrinayaa ilaa uu ka dhammeeyo qur'aankii uu akhrin jiray oo idil aayadda ugu dambayso ayuuna ku eg yahay martabada iyo darajada uu gaadhi doono maalinta qiyaamee dhibaatada badan qur'aanku ma dayacayo saaxiibkii iyo qofkii akhrin jiray nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasallam akhriya qur'aanka maxaa yeelay maalinta qiyaamaha ayuu u shafeecayaa qofkii akhrin jiray bal xaraf kasta walaalayaal oo qur'aanka ka mid ah akhriya adduunba wuu ku anfacayaa rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasallam qofkii akhriya xaraf ka mid ah qur'aanka wuxuu xarafkaa ku helayaa hal xasano halkaa xasanana waxay noqonaysaa 10 iyadoo kale ah sidaa awgeed ayuha alaxibba yaa ahla alqur'aan yaa ahla alqur'aan qofka qur'aanka akhriya wuxuu mutay in la kamto oo laga masayro suubanuhu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasallam isxasdini ma jirto laba unbaasa la kaman karaa oo sida ay yihiin ilaahu iga dhig la odhan karaa qofka koobaad waa qofka qur'aanka yaqaana ee habeen iyo maalinba akhriya qofka labaadna waa qofka ilaahay xoolo uu siiyey ee habeen iyo maalinba xoolihii sadaqaysta la saaxiib qur'aankaas iyo saaxiibka qaaliga ah la saaxiib lana noolow waxaad ku guulaysanaysaa ganacsi faa'iido badan iyo tijaaro aan khasaaro lahayn ina aladiina yatluuna kitaaba allah وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور